بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. dadka igu xiran ee online iyo offline ta dhamaantood waa salaamaya ee Soomaaliyeed. maantay waxaa dalkayagii ka dhacay abaar iyo xanuun ku yimid xoolaha. labada xaala marka ay timaadana mas'uuliyadda dadka iska leh ilaahay baa wax badbaadiyay sidii wax loo badbaadin lahaa in laga tashado iskuna xirmaan dal iyo dibad meeshii wax laga keeni lahaana laga tashado. waa afar qolo. qolada koobaad waa culummada oo laga rabo wacyigelis iyo irshaad iyo dadka in loo tawjiihiyo wadadii lagu gaari lahaa horumar iyo xal dhibkaana looga bixi lahaa. qolada labaad waa odayaasha ama salaadiin ha noqdeen ama nabadoono ama beeldaajiyaal iyo garaadyada in ay dalkii samata bixiyaan lana hadlaan dadka shacabka ee Soomaaliyeed ganacsatadeeda ee dalku waa isdhaamaayo kuwii maartay wax tari kara in la caawiyo bulshada Soomaaliyeed ee la daala dhacaysa faqriga iyo xanuunka. qolada saddexaad waxa weeyaan waa dawladda maamul kasta oo markaa meesha ka jira xilka saaran waxa weeyaan dadka inay abaabulaan wixii la helana si cadaalad iyo musaawaad ah loo qaybsado lana caawiyo dadka masaakiinta iyo fuqarada ah ee xoololeyda miyi iyo magaalaba ku baaba'san ee dadka Soomaaliyeed. qolada afraadna waxa weeyaan waa ganacsadayaasha Soomaaliya. xilligaas oo kale marka ay dhacdo of Ilaahay u naxariistay maahan intooda badan waxay sameeyaan hantidooda inay kaydiyaan oo xilliga adag ay la sugtaan ascaartana qaali ka dhigaan maadaama dadkii ay dhibaataysan yihiin labadaas inay kaga faa'iideystaan xanuunka xoolaha iyo dadka haysta taanis iyo dhaqaalana ay halka ka tabcaan. sidaa daraadeed cinda wuquuci qaxdi wal amraad marka ay dhacdo xanuumo ay dhacaan iyo abaar wajub al adl wal infaq ala al muhtaajin cadaalad in la helo lana nafaqeeyo dadka baahan yaa waajiba. hayr ilaahay baa wuxuu in Allah yaamuru bil adl wal ihsan wa itaa'i dhil qurba. ilaahay wuxuu ina amrayaa cadaalad inaad ka shaqaysaan ummadii u dhaxaysaan dawlad ganacsato culummo iyo dadka qabqablayaasha ama odayaasha qabiilooyinka iyo shacabka hortaagan hor jooga wixii arintoodana go'aansha. aayadaas marka waxay noo sheegaysaa cadaalad iyo ihsaan. ihsaanku waxa weeyaan waa nafaqeyntii iyo waxsiintii dadka qaraabadaahna si gaar ah loo sii xiriiriyo. وهي ضرورة قيام العلماء والأمراء بتحقيق العدل وتعاون الفقراء إن لا حقيقيه تعاونك يا عدالة وشيء ضروري ومركع علماء Soomaaliyeed ay u istaagaan arinta baahida loo qabo ee abaarta iyo xanuunka kulmaya. hayr ilaahay baa wuxuu leeyahay tacaawanu cala albirri wattaqwa wala tacaawanu bil ithmi wal udwan. isku kaalmaysta تعاون بري يا تقوى يا وناج اسكو كالميستا لكن هسكو كالميساننا عدوتنما يا ظلمي ما انت هدي له قبيل با قبيل هيا قبيلوي ان وحبا كا قسين با waxay keenahayaan hub rasaas daawo shidaal iyo raashin laakiin marka aad dhimanaysid oo dadka ay baaba'ahayaan ku caawin ma hayaan kuwaas waxaan leenahay Ilaahay ha ka baqeen hana u leexiyeen waxyaalaha loo baahan yahay dadka masaakiinta shacabka inay ku nooleeyaan walaalahood siday ajar iyo xasanaad la kuli karin ay u qaataan.